nasiib darro ah dadkaasi Soomaaliyeed calankii buluugga ah kor u hayaan dowladdii madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha ka yahayna hadda joogtaana dadka calanka wata wax muhiimada la siin mayo maalin walba waxaa mataqaana la raali gelinayaa oo la daba ordayaa dad goorgoosata oo dalkii ka goostay oo waan ka tagnay Soomaaliya waxaan barakatuh salaamaya adeer waan ku baahan tahay waraysiga adeer arrintaas caano waa wax iska cad waxa weeye xasuuq ka socda dad shacab ah oo mudaharaadaya oo dulmi magaaladaas ka dhacayay dhowr toban sano u dambeysay dadkeeda lagu leynayay xagaradkeeda lagu leynayay aqoonyahankeeda lagu leynayay labeentii dadkaas lagu leynayay ayay ka mudaharaadeen kabacdina dee mudaharaad dad shacab weeye oo aan hubaysnayn rasaas baa lala dhacay iyo baroon marka anugu falkaas cabdiwali ahaan waan ambaaraynayaa wax saxana maaha dadkaasina waa in ay xorriyadooda iyo masiirkooda iyo aayahooda iyagu ay ka tashadaan marka saas anugu ku micnaynaya waa xasuuq weeye la xasuuqayo dad maata oo shacab ah oo aan waxba galabsan dhibaatooyinka hadda ka taagan degmadaas sidee loo xallin karaa maxaase la gudboon shacabka degmada iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo kan Somaliland oo isaguna hadda meesha ka taliya adeer arrintu hadda Puntland iyo Somaliland midna ma taagna Puntlandna awood hadda ay ima muuqato rabitaan hadda igama muuqdo lagu difaacayo dadka oo sharaftooda iyo karaamadooda iyo lagu ilaalinayo igama muuqato Somaliland tarxasuuqaysa weeye marka aniga waxa ila tahay ra'yiyan dadkaasi masiirkooda iyaga in loo daayo xaq bay u leeyihiin inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda iyo meeshay aadayaan marka waxaan leeyahay ayaga ayaa u madax bannaan masiirkooda maanta hadda turjumaan u noqonaysaa ma jirto ayagaa la weydiinaya waxa ay rabaan waa taa muxuu yahay marka baaqaada ku aadan si guud dhibaatada halkaasi ka taagan iyo sida xal loogu gaari karo baaqa aan leeyahay waxa weeye dadkaasi dhibta lagu hayo iyo xasuuqa lagu hayo in laga daayo masiirkoodana loo madax banneeyo intaas weeye rabitaankooda iyo masiirkooda iyo ay ka talintooda iyagaa iska leh dhulkooda iyagaa leh degaankooda iyagaa leh rabitaankooda in lagu maamulo weeye cid ma khasbi karto shalay waxa ay leeyihiin SNM-tu waan ka diidinay oo waan ka dagaalanay tii bay waxay ku samaynayaan dad Soomaaliyeed ku samaynayaan midda kale waxa nasiib darro ah dadkaasi Soomaaliyeed calankii buluugga ah kor u hayaan dowladdii madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha ka yahayna hadda joogtaana iyo kuwa ka horreeya oo tiro badanina dadka calanka wata wax muhiimada la siin mayo maalin walba waxaa mataqaana la raali gelinayaa oo la daba ordayaa dad goorgoosata oo dalkii ka goostay oo waan ka tagnay Soomaaliya dadkii calanka buluugga kor u hayayna waxba laga soo qaadi mayo codkooda la maqli mayo rabitaankooda la dhegeysan mayo marka taalafteeda nasiib darro weeye waxaa madax loo yahay waa calanka buluugga ah weeye calanka buluugga qofka haya mas-uuliyad baa ka saaran dowladda xamar joogta iyo qof kastoo mas-uul Soomaaliyeed.